haddii wadaantiisa maanta walwalkeeda weydaartay karkaaradu wuxuu haddii wadaantiisa maantu walwalkeedu weydaartay karkaaradu geeridu wakhtiga qaar ka wanaagsan noloshuye ama gabar uu wadaad dhalay wacan ii aroostaan wahaabkaa isaarani wanaagga iyo raaxada wax ku tagaya maahan intay waxyahaygii waddankaygu maqan yahay waayeel gaboobiyo intuu waaxid nool yahay wiilashuu gumaystuhu hilibkoodu waray buu wadnahayagu tabayaan waddadii wacnayd laga weecan maayee intuu waaxid nool yahay koonfurtaa weyney wacad baa inoo yaalla mudanayaal iyo marweyn meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka xasaasiga kii ugu xasaasisnaa waxyaabihii 70 sano ee la soo dhaafay lagu soo dhaqmayay in ay soo daahir noqdeen qarnigan 21aad indhaha bini aadamku uu wada furan yahay xitaa xayawaanaadkii ay wax fahmeen ku soo dhowaada ayaanu leenahay waxaad ogtihiin oo aad ka dharagsantihiin waxaad ogtahay ma kuu sheegaa weeye ciidamadii aanu ka digaynay aanu sheegi jirnay jamhuuriyadda koonfureeday magaalada baydhabo waa ay gaareen maxaa kuu dhiman waxa kuu hari kara maxay tahay maxaad dhowranaysaa maxaad sugaysaa ma aakhiraad sugaysaa hadda kadib maya doqonta ayaa waxaa la yidhi duhur dabadii ama casir dabadii maalin bay mooddaa maalin lama joogo habeen baa la joogaa casar dabadii macnihii xaqa waa uu caddaaday macnihii tuugo iyo macnihii waddani xalaal quute dhammaan bur iyo biyo ayaa loo kala baxay wixii la isu gagambado ilka caddaynta beenta ah iyo qosolka aan dawada lahayn la isu sheegaba ciidamadii waa ay ka degeen magaalada baydhabo waa ay ka degeen dadkii u haystay baydhabo inay xor tahay dadkii u haystay koonfur soomaaliya baydhabo keliya inay tahay dadkii u haystayow oo islahaa baydhabo mar walba intay diyaarad soo raacaan baydhabo tegi jiray baydhabona in la imaan doono waan sheegnay haddaan la daaficin afgooye haddaan la daaficin marka haddaan macnihii difaac adag aan la dhigin ma arkaysee baraawe iyo kismaayo jilib gado macnihii iyo bakool haddaan macnihii difaaca aan la adkayn waanu sii sheegnay inaan baydhabo lagu fakanaynin baydhabay isugu soo urureen waxay u haysteen baydhabo keliya inay koonfur soomaaliya tahay laakiin duhurka dabadii doqon ayaa maalin mooda horay baan u sheegnay war dhagax meel dhow magacna meel dheer dhagax meel dhow magacna meel dheer war maanta ayay yaa maali jirayey ee joogtaa wax idin haray haba yaraatee ma jiraan arrintu way isku soo dhammaatay in badan baan sheegnay waanu ku celinay waanu ku adinnay waanu ka dhawaaqnay maanta finalkii waxay noqotay in beder la istaago dagaalkii beder oo kale in la istaago sharbaan warbaan loo kala baxo macnihii farmaajo iyo kayre qabiilkoodu ay caddaystaan in qabiilka macnihii koonfurta soomaaliyeed deggan nuucuu doonaa ahaadee ay weligooda gumaystaan ay haystaan macnihii in ay caddaysteen nidaamka dawliga calanka buluugga ah ee beenta ay ku qaraabanayaanna in ma arkaysee run uu soo baxay waxay qarqarinayeen aan sheegi jirnay maanta waad aragtaan walaalayaal haddaba wiilka reer koonfurow gabadha reer koonfuraay adiga maxaa kuu aayo ah adduunyada maxaad uga nooshahay haddii ciidamo macnihii ka soo jeeda caabudu waaq iyo garbahaarey iyo ceelbuur magaalada baydhabo barqacad lagu dejiyey oo maanta ay ku sugan yihiin magaalada baydhabo 1991 kadib taariikh cusub hadda iyo kow maxaa adiga kuu haray oo aad sugaysaa maxaa u baahan tahay in laguu sheego ma nooshahay ma mayd baa tahay ma dhalan miyaa ma dhicis baa tahay xaggeed joogtaa su'aalaha ugu weyn ee soo baxaya oo damiirta diidaya macnihii in qofka damiirta leh waxaan uu dhegaysto waa su'aasha hadda aan ku weydiinayo oo kale weeye ciidamadu waa ay ka degeen laakiin waxaannu tafaasiil yar aan sheegaynaa ciidamadaasi meesha ay ka soo baxeen
macnihii sida loo soo abaabulay waanu sheegaynaa waanu dhawaaqaynaa haddaba waxaan horudhacan sii sheegaynaa walaalayaal hal qabiil oo koonfur soomaaliyeed ka soo jeeda oo ma arkaysa in ummaddan la gumeeyo ogol ma jiro waad aragteen caadaqaatayaal isu tegey oo aan codadkooda idin siin doonno hadda stuudiyan aanu idinku siin doonno oo baydhabo idin dhex taagan diirka idinkala sheeganaya mooye ma jiro wax qabiil ah ninka la yidhaahdo mahad cabdiraxmaan jenaraal mahad waxaannu leennahay cadowga koowaad weeye waxaannu leennahay xasan xuseen eelay ninka la leeyahay goomaystaha ahaa cadowga ugu weyn weeye cadaylihii doolow ka soo galay ee ugaas xasan ay leeyihiin cadowga koowaad wey wallaahi ka gabban mayno ummaddan wixii aayahooda iyo mustaqbalkooda u soo dhigta wallaahi hadduu nagu aabba yahay nagu hooyo yahay inaynan u qarinayn kana gabban mayno asxaanna u samayn mayno waxaannu leennahay halka ay yihiin 15 milyan oo ay dulminayaan oo ay u loogayaan cadowga ayay macnihii 15 milyan ayaa ka muhiimsan waxaannu leennahay walaalayaal ciidamadaasi iyaga ah iskama imaadeen ciidamo awalba soo socday ahaayeen laakiin waxaad ogaanaysaan qabiil inaad ka fogaataan ogaada shaxdan waa shax la dhigay waa shax villa soomaaliya lagu soo qoray habeen iyo maalin qamri loo cabbay oo sidee la isugu dhufan karaa dadkan la yidhi maanta mukhtaar roobow aan qabiil ahayn haddii ciidamada loo soo diray in ay soo dilaan ya waxaad garanaysaa haddii maantay cabdifataax geesay ninka shacabka sidaan waxaan dhihi lahaa lafta gareen haddii midka shacabka sidaan uu doonayo u ahaan lahaa shaati guduud oo kale uu duurka geli lahaa uu dhihi lahaa farmaajo iyo kayre beelahooda nama gumaysan karaan hadduu dhihi lahaa sida mukhtaar uu u hadlay oo uu yidhi macnihii qabiilka iyo tuutaha dowladdaba waan iska celinayna hadduu lafta gareen uu dhihi lahaana waxay soo diri lahaayeen nin macnihii qabiilka mukhtaar ka soo jeeda ama cabdifataax geesayba ha ahaadee ay ku jabiyaan bay soo diri lahaayeen haddii buurakaba nin ka soo jeeda uu yimaadana waxay soo diri lahaayeen qabiilka lagu jabin karo dagaalkan dagaal aad idinku ku jirtaan ma ahan waa dagaal dusha laga soo habeeyey waa 1991dii 92dii 95tii dabayaaqadii 96dii toroboro tuun iyo toroboro dagaaladii muqdisho villa soomaaliya laga soo agaasimi jiray weeye dagaalkan wiilka koonfurta soomaaliyeed ka soo jeedow gabadha koonfur soomaaliyeed ka soo jeeday cagabararkii dib ugu noqo sawirada fiiri amaandhora youtube gal internetyada gal wallaahi oo bilaahi oo tallaah aan ku dhaartay macnihii dhammaantiin in la idin jaraa la doonaya in la idin gooyaa la doonaya doonta haddii doon haddii la wada saaran yahay walaalkaagii kula dhashay waa jawaab baan kaa rabaa haddii iyadoo badweynta macnihii caalamiga ay marayso ama baxalalmayd biyuhu ay madow yihiin walaalkaa uu yidhaahdo doontan anigaa duleelinaya ma ka yeelaysaan mise waa ka qabanaysaan jawaabtu way caddahay waad ka qabanaysaa waayo naftaadaa badbaadinaysaa maantay naf badbaadsi weeye mahad cabdiraxmaan lafta gareen iyo ma arkaysee kuwan kale ee ordaya waxba isuguma turna qabiilkooda oo dhammaystiran wallaahi in aysan macnihii shuraaka ku ahayn in ma arkaysee la keeno dad galguduud ka soo baxay hubaysan caabudu waa ka soo baxay iyo garbaaray raalli kama ahan qabiilku waxaan ka digayaa ummadda koonfureed yaan la idin sirin afarta tuugada ah eeyaha dhashay ah oo qabiilka facebookga la soo fadhiisanaysa yaysan idin sirin risiidyadooda iyo lacagaha meesha ay ka soo qaateen annaga southern media cooperation annagaa hayna meesha ay ku dhimanayaanna garan maayaan mahad shalay sidii arare jameecada uu u difaacayay dhulkan sidii baa loo dilayaa doontan waa la wada saaraya qabiil haddii aad qalbigiinna gelisaan cadaabta allah idinku fogeeyo qabiil ma taagna dagaalkaana dagaal macnihii qabiil uu shaqo ku leeyahay koonfur soomaaliyeed ma ahan dhammaanteedaa lagu soo duulay niman caada qaata ah
shariif xasan sheekh aadan ilaahay ha ka waraabiya naarta oo bakiin garaabistayaal ka soo qaatay shaatiga ay ku caddaadeen baydhabo keenay weeye kuwa dhawaaqaya maanta ciidamadaasi soo dhowaynaya sidaasi daraaddeed koonfurtaa weyn waad ka weyntihiin waa ka baawar saraysaan 30 milyan baa tihiin walaalayaal waxaan leenahay midnimadiina ilaaliya midnimadiinni caqabadda ugu weyn mahad cabdiraxmaan haddaan la iska qaban mahad cabdiraxmaan haddaan la iska qaban xasan xuseen eelay haddaan la iska qaban caloolkuus haddaan la iska qaban cadaylaha ugaas xasan ay leeyihiin haddaan la iska qaban waxaanu sheegaynaa wixii lagula dagaalay cabdalla deerow maxay ahaayeen shaati guduud wuxuu meydka soobe in baydhabo laga soo dejiyo xitaa uu diiday maxay ahayd war maxay ahayd waxa ma arkayse cabdalla deerow macnihii loogu diiday inuu baydhabo yimaado isagoo xaaraan xambaarsan maxay tahay intaasoo dhan maxaa lagu diiday maxamed nuur caliyow maxaa lagu diiday maxaa loola dagaalay maxay kaga duwan yihiin eeyahan maanta sidaasi daraaddeed haddaba waxaanu sheegaynaa ciidamada baydhabo soo gaaray meesha ay ka soo duuleen baanu idiin sheegaynaa sidaan hore idinkugu sheegnay habeen horay ahayd markii la rabay si qarsooni ah in lagu keeno ciidamada magaalada baydhabo waxay ahaayeen laba guutada waran iyo guutada loo yaqaano gaashaan ayay ahaayeen guutada waran baa la rabay in la hormariyo guutada gaashaanna laba beri doorashada markay ka dhiman tahay 30 bisha maanta oo kale in la geeyo maadaama qorshihii uu fashilmay oo ma arkayse wixii ay kala fashilmeen sirdoonka awoodda badan Southern Media Cooperation ee ku sugan villa Soomaaliya waxay idin xaqiijinayaan oo idin cadaynayaan ciidamadaasi in la baajiyay oo baydhabo in la geeyo in la baajiyay bacdama ay u badnaayeen ciidamo reer koonfura gaar ahaan maay ku hadlaya isla markaana markaan fashilinay dal iyo dibad meel kasta nin kasta cunugiisi iyo ku adeer u ahaa meel walba lagala soo hadloo la yidhi ma baydhaba dab gelinaysaan war mana gumaynaysaan oo ciidamadii ay kala tageen sidaasi daraaddeed qorshuhu ma dhoweyn qorsho kale ay dejiyeen qorshoo kaloo dejiyeen waxay tahay by hook or by crook in waddo kale loo maro eelay ninka la leeyahay xasan xuseen eelay ninka la leeyahay ayaa waxaa la yidhi waxaa tahay wasiirka amniga hadda shaqaynaya soo dalbo ciidamada markaa soo dalbatid si official ah ayaan kuugu keenaynaa nidaam dawli ah u fiirso shariif xasan in uu macnihii shaqaalo u ahaa nimankan meeshaad ka aragtaa kuwii uga tegayna inay xamar tageen oo ma arkayse qorshihii xamar ay soo qaadeen waxaanu sheegaynaa ciidamada baydhabo laga dejiyey saakay laba weji bay isugu jiraan laba dhan bayna xabadda u tuurayaan ciidamadaasi waxaa la diray arrinta markay fashilantay ninka hadda hogaaminaya ciidamadaasi ayaa loo diray Jabuuti ciidamadan waa ciidamo macnihii kala wareeg ciidamo la dhihi jiray iyo Alpha Group oo uu dhisay General Maxamed Shiiqi xilka laga qaaday dhisay ayay ahaayeen oo la soo xulay isla markaana dhamaca macnihii inta badanna la shaqeeya shabaab ummadana muqdisho kala wareeg kuwii loo bixiyey jidadka ku dhibi jiray weeye waaba laga baxayba koonfur iyo macnihii nin meeshaasi u dhashay maxaaba u geynayaa la yidhi berriyuu nagu soo jeesan karaa ciidamadan ciidamo Jabuuti la geeyay ahaayeen Jabuuti ay ku sugnaayeen iyagoo Jabuuti jooga ninka la yiraahdo Saadiq John ninka la yiraahdo oo isagu ah ninkii Cabdi Qaybdiid oo senatorkaasi ka tirsan gurigiisa ku weeraray rabay inuu dilo isla markaana xaaskiisii musqusha ugu galay iyadoo qaawan musqusha ka soo saaray oo aan u aabayeelahayn kuna qabiil ah Cabdi Qaybdiid oo cadaada ka soo jeeda ninkaasi Saadiq John ayaa ma arkayse ciidamada iyagoo Jabuuti jooga tababar loo fidinayo loo diray waxaa la yiri ciidamadaasi soo kaxee Jabuuti oo aaday Saadiq John oo macnihii
cabdi qaybdiid oo isku qabiil ay yihiin u aabayeeli waaye cabdiraxmaan cabdishakuur oo isku qabiil yihiin gurigiisi ku weeraray oo dhaawacay oo geesay sigtay rabay in uu dilo sidaasi daraaddeed saadaq john oo cadaada ka soo jeeda jabuuti ay u direen ciidamadana maxay yihiin ciidamadana waa ciidamo garbahaaray ka soo jeeda qabiil inaan sheego maskaxdiina way korsan tahay waad iga taqaanaan ciidamo garbahaaray iyo caabuduwaaq iyo ceelbuur u badan weeye iyo ma arkaysa cadaado hal qof oo koonfur soomaaliyeed ka soo jeeda kuma jiro ciidamo macnihii barax tiran shabaabna la shaqeeya shaqaday u socdaan aan idiin sheegi doono weeye saadaq john jabuuti uu tegay daraad ciidamada eelay baa xamar tegey shaluu ka soo noqday tegitaankii uu tegey iyo waa la iswaafajiyey keenista ciidamada jabuutiya laga soo qaaday diyaaradda siday u socotay xamar kama degine baydhabaa lagu dejiyey maxaaba naloo jaajuusaya maxaaba sirteena loo sheegayaa oo diyaaradda lambarkeeda facebookga nimankan dhibka badan intay soo dhigaan maxaaba loo ridayaa jabuuti ay ka soo kacday magaalada baydhabay ka soo degtay ciidamadaasi waxay wataan 7 dhashiika ayay wataan dhashiikaha garabka laga tuuro ah oo casriga ah baabuurta aan la saarin bay wataan 17 beekeam bay wataan 17ka beekeam kuma jiro beekeam afgalaasa kuma jiro ama beekeam oo afdabayl ah dadka ciidamada yaqaana say u yaqaanaan kuma jiro waxay wataan oo beekeamyadaasi ku jira beekeamka macnihii shiinayska loo yaqaano oo taraweersada u dhaca oo macnihii xabaddiisu kuwa ka soo horjeeda marka lagu ridaayo sidaan u baxa bag markaasi dhag si waxa kaa soo horjeeda aysan waxba uga fakan haddii tani ay dhaafto tani ay disho macnihii beekeamyadaasi way ku jiraan iyo beekeamka ama dabajeexa afka dheer way ku jiraan ciidamada noocaasi weeye waxayna u badan yihiin bastooladley weeye waana noocii madax toogashada shabaabka la shaqaynayay kala bar oo bar waa shabaabkii laga soo qaaday ceelbuur iyo dhulkaas weeye ciidamadaasi waxaa magaalada baydhabo marka la keenay tuutaha belayska loo geliyey ciidamadaasi iyaga ah waxaa loogu talagalay oo hadda ku xaraysan divisionka waxaa loogu talagalay in ma arkayse guryaha dadka ma arkayse ummaddan u ololaynaysa ay galaan waan baaraynaa ay yidhaahdaan markaasi kadib qofkii bamba ay u dhex dhigaan baaritaanka intuu socdo kadibna dembi loo sameeyo qofkii guriga lahaa la yidhaahdo ban baan ka helnay ama qori baan ka helnay shabaabuu la shaqaynayay ama shabaabuu ahaa ama shabaabuu u fududaynayay ciidamadaasi balaas waxay wataan maxkamadoodii wareegta military tribunal ayay wataan maxkamadda militarigay wataan oo qofkii dembi inta loo sameeyo xamar lala sugi maayo xafiis kale lala sugi maayo isla markii maxkamadoodu waxay waaran ku goynaysaa toogasho qofkii gurigiisa lagu helay bambada la toogto ayay hore ka dhigi doonaan laakiin ciidamada intooda badan waxaa loogu talagalay madax jebin inay madax jebiyaan siyaasiyiinta ummaddan inay xorowdo u istaagtay aqoon-yahanada dadka dhiigga leh in habeenkii ay guryahooda ku qarxiyaan ay madaxa ka jebiyaan baa loogu talagalay waxaa ugu weyna ay tahay mukhtaar robow inay khaarijiyaan ay kow kaga siiyaan haddii ay dili waayaanna waad arki doontaan haddii ilaahay tiisi uusan keenin wuu ka fakan doonaa mukhtaar laakiin ciidamada sidaasi ayaa loo keenay ciidamadaasi haddaba saadaq john uu hogaaminayo isla markaana reer caydiid u badan waxay si toosa ay ka amar qaadanayaan farmaajo maana khayray u janjeeraan khayray aad ugu dhow yihiin ciidamadaasi walaalayaal marka haddii arrinku uu sidaas yahay ummadda koonfureeday waan kugu soo celinayaa haddii samidii walwalkeeda la weydaartay karkaarada haddii wadaantii samida walwalkeeda la weydaartay karkaarada wuxuu war sugan geeridu wakhtiga qaar ka wanaagsan noloshuye ama gabar uu wadaad dhalay wacan ii aroostaan war ama gabar uu wadaad dhalay wacan ii aroostaan intay waxyahaygii
waddankaygu maqan yahay wahaabkaa isaarani wanaagga iyo raaxada wax ku tegaya maahan wiilashuu gumaystuu hilibkoodu waray buu wadnahayagu tabayaan waa yeel gaboobiyo intuu waaxid nool yahay waddadii wanaagsanayd laga weecan maayee koonfurtaa weyney wacad baa inoo yaalla wacad ayaa inoo yaalla waa la kala baxay macnihii qabiil ma taagna ninkii ku haminayey mahad cabdiraxmaan waa qabiil ninkii ku haminayey maya famil weeye famil laba famil ah ama afar famil ah isu soo bahaysatay gumaynta ummaddan isu soo bahaysatay weeye qabiilka mahad iyo lafta gareen waa nimankii gobonnimada koonfurta soomaaliyeed horseedayey shaati guduud weeye ha ka cabsanina shaqo iyo shuqulku ma lahan wayna ka soo hor jeedaan ma ii sheegi kartaa maantay macnihii ma la imarsiin karaa qabiil koonfur soomaaliya deggan oo asal ah macnihii khaasatan shaati guduud uu ka dhashay miyaa oggolaan kara caydiid ciidamo ka dhashay in saacaddaasi baydhabo la keeno ay qabsadaan miyay qabiilkaasoo dhan raalli ka noqon doonaan maya weeye ninay soori qaadday xagga ii dhig xasan xuseen eelay ma qabiil baa ugaas xasan ma qabiil buu matali karayaa war lafta gareen ma qabiil buu matali karayaa warbaan sharbaan warka wuu caddaaday waxaannu leennahay laakiin ninkii aabbihiisii qooraa ka jiijiiday hooyadiisuu ku dheereeyey ummadda koonfureed oo qarnigan la joogo macnihii haddii farmaajo iyo kayre ay isku dayeen in maalin cad ay ciidamo geeyaan oo ay qabsadaan waxaannu leennahay dhibaatada waad isku sii badiseen ayaannu leennahay yeelina mayso ummaddan in ma arkaysee mar dambe la sii haysto yeelina mayso waxaannu ognahay waan ognahay laakiin waxaannu sheegaynaa cir wixii uu keeno dhul ma qaadi weynaayo cir wuxuu keeno dhul ma qaadi weynaayo hore waxaan u sheegnay war 10 milyan aad tihiin 9 milyan oo ka mid ah waa in dhimasho ay u diyaar garowdaa ay dhintaan 1 milyan ee soo haray waa in gobonnimo ay ku noolaadaan waa in gobonnimo war gobonnimo waa inuu ku noolaadaa wiilka koonfurta ah gabadha koonfureed waa in gobonnimo ay ku noolaataa kuna noolaadaa waxaannu sheegaynaa caqabadda koowaad nimanka tuugada ah qabiilka ah oo ma arkaysa dharka belayska loo soo geliyey madax toogashada u yimaaday nimanka noo soo dhoweeyey war qabiil maahana naado weeye ogaada mahad cabdikariin iyo tiimkiisu ma ahan qabiil ogaada waa ma arkayse jawaasiis weeye cadowga ummadda weeye war cadowga kan kore kan soo dhoweeyey baa ka xun qabiil maahan ha ku difaacina waxaannu sheegaynaa oo aan caddaynaynaa war cad aan ku sheegaynaa waxaannu sheegnay ciidamadaasi yaysan soo degin hadday soo degaan ay noqoto way idiin dhammaatay haddaba ciidamadan bilow weeye ma ahan keliya intaan waa ciidamadii waddadii lagu keeni lahaa 10 kun oo askari weeye waana waddadii loo soo furan lahaa in ma arkaysee doorashada lagu afgembiyo weeye sidaa daraaddeed biritikistigii ugu weynaa tijaabadii ugu weynaa baad ku jirtaan waxaa la yidhi macnihii way shaqal dibiga ku quus qaatee ciidamadaasi meesha ku jira haddii aabbahay uu ku jiro hooyaday ay ku jirto abtigay uu ku jiro walaalkay uu ku jiro walaashay ay ku jirto ummadda koonfureeday khaasatan dhallinyaroy waxaannu idiin sheegaynaa ku kudkudiya bad ha tiraahdo meesha ay ku jiraan ha ku quus qaataan kuwa dambe ee la soo wado degdeg baydhabo hal guriyaan lagu arkin one house hal guri dibaan ka dhisan doonnaa hal guri yaan la arkin hal guri oo taagan yaan la arkin intii ay kuwaasi joogi lahaayeen waa go'deen waa dhammaateen waxba idinma dhinna war hal guri baydhabo yaan laga arkin laakiin sidii ruush ilmihiisii la afduubtay oo kale oo tiyaatar ku jira abqaasiya southern abqaasiya macnihii u badbadiyey oo kale daartaasi ay ku jiraan waa in ay badbaddaa ilaahow
macnihii qiyaamaha muu dhaco waa in ay badbadaa etoobiyaan ma ahane ruush ha yimaado waa in karaamadiinni iyo waxaad tihiin la arkaa waa in karaamadiinni iyo waxaad tihiin la arkaa waryaa aararey xilligay jirtay waad ogaydeen waad dagaalanteen waad disheen ma maantaad ka liidataan maxay tahay naf jeclaysigaasi war geesi waa kii dhimasho cadaystay oo ma arkayse geesigu waa kii dhooma buuxsaday oo ma arkayse isagoo gaaja macnii dhexda ah waa in kii macnii sagaaro xataa ku dhaashaday war geesigu waa kii dhaqaaqay war geesigu waa kii dhulkiisii dhacsaday ee dhimasho cadaystay war maxaad uga dhabcaalowdeen dhimashada iyo dhacsashada sharafkiinni iyo karaamadiinni iyo jiritaankiinni maxaad uga dhabcaalowdeen war 9 milyan 8 milyan ha baxdo annagaasi mar horaan dhimannay 7 sano ka hor ayaan dhimannay war waa noo jeedaan qolofteenaa u jeedaan war dad mar hore isqadimaannahay waanu qadimannahay dhimannay annagaasi wariyaasha ah mar horaan isqadinnay mar hore ayaanu bixinay karfanteena waa diyaarsannay guryahay noo taallaa macnihii tacsida dhigitaankeedana lacagtii lagu dhigi lahaa waa dhigannay sidaasi daraaddeed qabriyadana waa gadannay war maxaa sugaysaan ma tan ayaa dhexdhexaad laga ahaan karaya waxa abaabulka ciidamadaasi iyo soo dhowaynta iyo intaanoo dhibaataa ku jira waa wuxuushoo dhan oo ay ka mid ka tahay maryan walaalaha gabadhay leeyihiin maryan walaalaha iyo mahad cabdikariim bay hoos tegayaan baa layidhi tuutihii waxaa loo geliyey booliiska ma koonfur soomaaliya oo 12 milyan ah miyaa u baahan askar miyaa u baahan macnihii booliis kala ilaaliya maxay uga baahan yihiin maxay qabanayaan dadka ma arkaysa malaayiinta ah oo deegaankooda u dhashay maxay qabanayaan maxaa ciidamadaasi loo geyn waayey puntland maxaa loo geyn waayey ma arkaysa galguduud maxaa kismaayo loo geyn waayey maxaa adiga lagugu keenay waxaan u malaynayaa xaniinyahaagii baa la ogaaday meeshay la eg yihiin iyo sida loo jiijiidi karo haddii aan xaniinyahaagii la tijaabin in la jiidan karo oo aad ka dagaalami lahayd oo baydada aad garaaci lahayd oo aad macnihii baabacada bambaanooyinka bootiya dadka iyo baabuurta iyo beeka amka boobatuuraha iyo beerlaabka iyo baaskooladda intaba ku dar iyo bumbooyinka aad ma arkaysa u laqimi lahayd farmaajo iyo kayre kuma soo hawaysteen maanta waxaanu sheegaynaa ummadda laga yaabo in macnihii dhegta wax loogu sheego oo mahad cabdikariin qabiilkiisii oo dhan way ka soo horjeedaan waa macnihii faamilka isaga iyo wiilkuu sadag u yahay weeye iyo 2 kaloo lacag uu siiyey dadka macnihii taleefanada loo dirayo hadday ahaan lahayd ugaas xasan kuwaan qashinka kuwa ay taleefanada u dirayaan waxaanu sheegaynaa waxaanu caddaynaynaa wax ku qaata waxaad wax ku qaadataan cibirka iyo taariikhda waxbay ku bartaa puntland u noqo for 8 years for 10 years dib ugu noqo waxaad xusuusataa cadda muuse waxa uu ka soo jeedaa qardhuu ka soo jeedaa dadka ugu badan deegaanadaasi degganuu ka mid yahay ee ninka la yidhaahdo jaamac cali jaamac waxa uu ka soo jeedo waa la yaqaan deegaanadaasi dadka ugu badan haddana iyadoo la jecel yahay cabdillaahi yuusuf markuu yimaaday ma arkayse maadaama iyagu dowladda carta cabdiqaasin ay ku xirnaayeen cabdillaahi yuusuf markuu yimaaday waa laga soo wada jeestay waxaana la yidhi xataa jaamac waxay ugu yeereen inuu macnihii salaadda uusan hor kici karin oo macnihii ragannimadiisu ay haaf tahay nin aan rag ahayna xitaa imaam inuusan noqon karin salaad tujin karin brobagandadaasay ku fureen sidaasi daraaddeed waxaad ogtihiin barqacad in ay iska buriyeen islamarkaana aayahooda iyo mustaqbilkooda in gacantooda qofka ku dhisanaya ay taageereen waryaadee taariikhda wax kale ka baro waxaad ka baranaysaa oo aad ka ogaataa haddii aan gadaal u noqonno macnihii qofkaaga xun macnihii gunnimada kuu soo jiidaya waa layska qabtaa kan ugu macaan hadduu yahay waxaad dib ugu noqotaa genaraal shaati guduud dib ugu noqo shaati guduud waxaad ogaanaysaa in ma arkayse soobe uu la dagaalay uu yidhi baydhabo ma imaan karo xataa meydkiisi uu diiday sababta maxay ahayd waayo siyaasadda meesha macnihii laga soo dhaqaajinayey cadowga dadkan sida villa soomaaliya villa qashinay ahayd okay
maxaa lagu diidanaa soobe waxaa lagu diidanaa maxamed nuur caliyow maxaa lagu diidanaa xabadda loogu riday waayo macnihii waxbaa ka soo qurmaayey meesha uu daba taagnaa baa la diidanaa lafta gariin qof diidan ma le haddii meesha mukhtaar uu taagay uu soo istaago isagaa loo loobingarayn laha maanta isagaana mudan sidaasi daraaddeed shaati guduud macnihii muxuu cabdalla deerow oo ay isla soo dagaalameen tiyeeglow uu ciidamo ugu diray oo uuga eryey maxaa yeelay meesha laga soo diray baa bakhti ahayd bakhtiga macnihii uu xambaarsan yahay baa la diidanaa war cid diidan male cidahan meelaha macnihii jooga hadday raganimo leeyihiin ay tartamayaan cid diidan male laakiin yaan la idinku beerlaxawsan shaati guduud siyaasaddiisii dib ugu noqda waxaad ogaatay ciidamadan waxaa ku jira cabdalla deerow isaaq kuwii ku dilay masaajidka baydhabo ayaa ku jira ilmihii loo adeegsaday cabdalla deerow magaalada baydhabo ku toogtay maalin jimcaha isagoo khudbad ka soo baxay markii cabdiqaasin uu ka hor yimaaday darteed baydhabo ku toogtay ayaa ku jira laba wiilaa ku jirta wiilashii cabdalla deerow dilay ayaa ku jira waana macnihii rag la soo xulay oo madax toogashada macnihii khaarijinta siyaasiyiinta aad u yaqaan ku caan baxay isla markaana taleefanadoodu laba simkaar ay tahay shabaabna la shaqeeya oo meeshii la fahmi waaya iyagaba shabaab isu beddela qarxiya markaas kadibna sabab u sameeya dowladda federaalka in ciidamo ay keento sabab u sameeya sidaas daraaddeed ciidamada la keenay waa ciidamada labada dhinaca badda u ridaaya waana ku shabaabaynayaan oo intay qaraxyo iyo bombooyin sameeyaan baa hadhowdiina ay kugu maxkamadaynayaan adiga shabaabkaaga dhigayaan kuna ku tooganayaan wiilashii labada ahaa cabdalla deerow ku dilay baydhabo ayaa ku jira rag sidaa loo soo xulay weeye maxaaba maay ciidamadeennu oo baydhabo aan geynayno aan uga dhigaynaayaa la yidhi oo hadhowdii ay reerahoodu ay macnihii la saftaanba laakiin waxaa la keenay shabeel kii lagu dilay maanyafuulka waagii aaraareeda ogtihiin oo mahad nafsaddiisu uu xabadda ku soo ridayey jenaraal mahad uu xabadda ku soo ridayey ilaa iyo maanyafuulka uu soo bursaday ee meesha uu ku toogtay weeye kuwa caawa jenaraal mahad uu baydhabo ku soo dhowaynayo oo macnihii tuutihii booliiska u gelinayo uu leeyahay ma arkayse waxaa weeye ciidamo booliisa ee ammaanka difaacaya weeye ammaan ma jiro arrinku sidaasi u ogaada macnihii annagu waxba idinma qarinin haddii jawaab degdeg ah laga soo dhiibi waayo haddii laga hadli waayo haddii laga dagaalami waayo haddii meesha sarta ay ku jiraan caawa loogu wanqali waayo ama berri macnihii dambas looga dhigi waayo waxaad ogaanaysaa way isku soo urursan doonaan sidii shabeellada hoose ay isugu urursadeen ayay isugu soo urursan doonaan wixii la raadinayeyna way samaynayaan qaar ay madax ka toogtaan maalinta doorashadana ay macnihii dagaal toosa bay dhabageliyaan oo mukhtaar roobow ma arkayse isagoo u socda howlka anugu waxaan ku talin lahaa ummadda koonfureeday doorasho ma jirta ee mukhtaar ku caleema saara isbartiibada aragtideenna dheer waa sidaasi wax doorasho la yidhaahdo ma jirto le'annahu ciidamadan waxaa loo keensaday in mukhtaar roobow ay dilaan marka hore haddii ay dili waayaanna marka uu soo socdo ay xabada furaan isaguna uu jawaabo markaa kadib degdeg ay u soo galaan ciidamadii federaalka isla markaana baydhabo ay olosho mukhtaar sidaa lagu dilo oo rabitaanka shacabka sidaasi dhulka lagu geliyo qorshuhu sidaasuu ahaa wuuna ahaan doonaa laakiin dagaal marba haddaan la huraynin nimankaasi deegaanka uma dhalan wax kuuma ahan cabdi qaybdiid ninkii ku qabiil ahaa oo ma arkaysa xaaskiisii mashquusha ugu galay kuuma aabbayeelayo adoo maay odhanaya waxaannu leennahay ummad yahay waxaad samaynaysaan meesha ay ku jiraan ha badbaddo idaa zulzilat alarlu zilzaalaha ha noqoto idaa zulzilat alarlu zilzaalaha waa in ay noqotaa wax kasta ka yimaadaan war shareecada islaamka iyo international law intaba way ogol yihiin
in gurigaaga marka lagugu yimaado aad iska difaacdo waryaada haddii aydan ka dhigin idaa zulzilatil ardu zilzaalaha haddaydan ka dhigin boqolkaasi qof toddobada dhashiika ee garabka wata ee 19 beeke amka wata oo in ay idin qaarijiyaan raba ciidamo dambana sugaaya oo isu soo urursan raba oo caabud waaq iyo garbahaarey iyo ceelbuur iyo ma arkaysa cadaada laga soo qaaday taliyahana looga dhigay macnihii saadiq john oo cadaada ka soo jeeda waxaan idiin sheegaynaa haddii aad badbadin weysaan waxaanu isu sheegi doonno waxaa weeye salaan iyo kala tagay weeye maalin dambana 70 sano waxaad sugayseen ma laysugu imaanayo bal cambaacuuri bay noqon hal bacaad lagu lisay dadaaladiinni intaasi aad u gasheen haddaba walaalayaal waxaanu sheegaynaa maxamed mursal oo loo yaqaano mooge muxuu adduunyada ka hayaa hadduu VOAda laanta afka Soomaali maxaaga waraysi uu siinay isagoo Istanbul jooga wuxuu leeyahay maaliyadda guddiga maaliyadda waxaan ka hadli doonaa markii aan xamar tago war ma maaliyaddan baad joogi doontaa ma maaliyaddan baad xisaabi doontaa ma guddoomiye baarlamaan dambaad noqon doontaa 0.5 aba ku jirtaa laga bilaabo saacadaasi maxaad uga hadli laadahay ciidamadan bay dhabalageynayo mise adiga ayaaba ka raalli ah ummadaada in la baabiyo maxamed mursal sheekh adigoo ah kusimaha madaxweynaha adigoo ah afayeenkii baarlamanka adigoo maanta haddaad dhawaaqdid xasaanad wata adoo 15 milyan macnihii wakiilkii ugu sarreeyey ee villadaasi qashinka ku matalayay ah xaggee joogtaa war xaggee joogtaa ma sixran tahay waxaan rabnaa walaalayaal hadalladii fookanka ahaa ee yaabka badnaa oo adduunkan ma arkayse shariif xasan caruurtii meesha uuga tegay la idiin sheegi jira inay wadaniyiin yihiin caaqda ahaa xayawaanada ahaa oo dhukayga ahaa dhiqlaha iyo dhargalka dharka ummadda ugu jiray ahaa ugaas xasan ninka la leeyahay iyo xasan eelay oo ay sii leeyihiin radio muqdisho villa qashin intay waraysi siiyeen annagaa ka raalli ah waanu soo dhowaynaynaa kuwa kalena oo badan waa sugaynaa ciidamada ay leeyihiin iyagoo baydhabo jooga codadkaasi waa idiin shidaya laakiin waxaan rabaa inaan ogaado imisa xildhibaan ayaa ku jira dowladda federaalka koonfur Soomaaliyeed ka soo jeeda xaniifa ka hadashay iyo aadan madoobe marka laga yimaado oo yiri arrintan unacceptable wax la ogolaan kara maahan waa arrin dhiigga taabanaya maxaa aararey u soo dagaalantay why qarnigan iyo dictator cusub in la isqabsado maxaa duhur cad la isugu doolaabaya waa su'aalaha isweydiinta leh wariye sare xasanos waxaan ka rabaa inaa ii dhiibtid liiska xildhibaanada ku jira ee buunshada loo daadinayo villa Soomaaliya jooga waxa maanta ka dhacaya meeshii lagu soo doortayna macnihii ka aamusan berina raba in xildhibaan ay noqdaan ama asaagooda ay meel la fariistaan baanu doonaynaa inaan ogaano dhalin yahay ogsoonow iskamaan dhawaaqine boog dhaawac noqotiyo nabar igu dhacaa jira nin dhirbaaxa kulul ku dhifteena wareer koonfurku waa rag kuwa kale waa naago nin dhirbaaxa kulul ku dhifteen haweeno dhan u licisan baanahay dhibti waa igu keligay ummadda koonfureedow wiilka koonfurow gabadha koonfureeday dhibka waa kugu keliga adiga wax walba eelay ka ah adiga ayaa wax walba xun macnii adiga iskale wixii xun baxaawa iskale adiga ayaa ma arkaysa wixii sanna macnii ka xun sidaas daraadeed waxa kugu jira kow maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha baarlamanka ninka isaga ah toobadiisu way fiican tahay aad buu u shaqeeyay hadda muqdisho ku sugan yahay haddaan la hadlayay isaga iyo ma arkaysa farmaajo iyo qayre ma kulmin xalane ayuu ku sii socdaa wuxuuna ka dardaarmay in wixii la soo dhisay alaabihii la soo dhisay inta aan baydhabo uusan ku noqon aan dib loo furfurin oo ma arkaysa aad loo adkeeyo midnimada maxamed sheekh cusmaan jawaari lambar 2 foosiye maxamed sheekh foosiye istaag waa taqaanaan meesha ay u shaqayso iyo meelaha ay guryaha ka dhisayso 3 ibraahim yarow isaaq shaqadiisu way fiican tahay daahir cabdi cabdullaahi 5
shariif maxamed cabdalla 6 cabdiwahaab ugaas khaliif 7 cabdiqaadir shariif xasan 8 cabdicasiis xasan maxamed 9 raabica sheekh nuurow waa la yaqaana shaqada fiican ay hayso 10 cali cabdi cusmaan 11 samre ibraahim maxamed samre sagsaag waa taqaanaan in ay tiri anigu haddii aan idaacad soo istaago khayraa ifuraaya oo aan ummaddaydii aan wax la qaba aan dhaho gabadhii tiri weeye 11 malaaqeedana qoobaa ka garaacday doorashadii dadbanayd ee hamaan ay ma arkayse qolka isla geli jireen 12 yacquub cali maxamed 13 maxamed mursal maxamed 14 sandheere maxamed iftiin 15 maxamed axmed garweyne 16 aadan ibraahim dhaayow 17 xasan cali maxamed 18 maxamed jaamac mursal 19 cali aadan eebow 20 maxamuud macalin yaxye 21 sheekh shaacir sheekh maxamed 22 khaliif duurey 23 cabdi ibraahim sheekh muudey 24 hani maxamed aadan 25 idris cabdi takhtar xildhibaan taano waa taqaanaan meeshuu ku shubmay sida derinta ugu shubmay waxaan sheegay 26 maxamed mursal shiikh waa mooge guddoomiyaha baarlamanka aamusan maaliyadda ka hadlaya dadkii oo dhammaanaya oo sayshantii 1991 iyo labadii oo kale la rabo haddana maalintii in 1 milyan ay dhimato macnihii iska daawanaya 26 27 macallin cali aadan cadow 28 axmed xaaji maxamed taaw 29 cabdirashiid maxamed axmed 30 cabdiraxmaan maxamed axmed 31 cali sheekh maxamed nuur 32 saalim caliyow ibrow ma aragtaan meeluu ku dambeeyo qadiijo maxamed diiriye suu u aroosay haddana macnihii ay isaga furtay ma ogtiin meeshuu ku dambeeyo islaantaasi iyadu ma arkaysa candhasaabka cusleeya xabadkeedu jawaari cayday oo qabiil koonfureed hadda ka hor caysay okay 33 isgoowe daarow isaaq 34 maxamed axmed cabdi islaaw miya 35 maxamed xuseen isaaqa faraale waad aragtaan meeshuu soor ku cunaayo 36 oo $60,000 ka qaada la yidhi oo maxamed mursal uu ku yidhi ka qaado 6,000 adig iyo taana iyo sandheere maxamed iftiin lafta garen 36 axmed mayow cabdulle ruush 37 magacyada xoogaa way iga qarqarsan yihiin cabdullaahi xuseen cali 38 cali yuusuf cusmaan 39 cismaan xaaji cali nuur 40 isaaq maxamed maxamuud 41 xamse siciid xamsa 42 jawaahir cadaawe cabdi 43 siciid cabduqaadir macallin 44 cabdullaahi cumar abshir 45 cabdullaahi sheekh ismaaciil 46 maxamed siciid cabdullaahi 47 maxamed cumar dalxa 48 nadiifo aadan isaaq 49 aamine sheekh cismaan 50 siciid cali cabduqaadir macallin 51 maryan macallin isaaq 52 muna khaliif sheekh abuu 53 maxamed nuuraani bakar 54 shariif sheekhuna maye 56 safiya xasan nuur 57 xuseen cusmaan xuseen 58 aamine xasan cali 59 xasan cusmaan xuseen 60 maxamuud maxamed doolow 61 sareede maxamed cabdulle 61 maxamed isaaq cusmaan 63 xasan ibraahim maxamed 64 cabdifataax maxamed ibraahim geesay waa ninka baydhabo hadda jooga aamusan 64 65 iimaan cabdullaahi cali 66 nadiifo maxamed ibraahim 67 deeqo xuseen xasan 68 xuseen maxamuud sheekh 69 xasan macallin xuseen intaasi ayaa xildhibaana ka ah dowladda federaalka soomaaliya ee villa qashin fadhiya maxay uga hadli la'yihiin ciidamo noolnool oo qabiil ah in baydhabo la keensado ay ka aamusaan maxaa lagu qabsanayaa ma la jarjaranayaa
ma hilibba oodkac miyaa laga samaysanayaa ma arribaa maxay qabanayaan war iilka la isma gargaaro adduunka la isgargaaraa aboor la iskama celshe maxay ummadoodu u qabanayaan hadday maanta ay hadli waayaan war nimanyow koonfur Soomaaliyeed inay xorowdo iyo inay gumowdo wax ka dhaxeeya ma jiraan qashin iyo qushuush oo dhan ay dhalay oo dhan qabiil ma noqon karo ha ugu heelinin jiritaankiisu macnii khatar geliyay adigana kaagii uu khatar geliyay ayana kuma hayo salbalaar kuwii shalay keenay aakhirkana iyaga futada xabada laga geliyay waxaana keenay qashin kasta keenay oo koonfurta ka soo jeeda oo badi may ku hadlaya waa isla tabtii eeyaha dhalay oo ma arkayse maanta airportka ku soo dhaweeyay kuwa oo ma arkayse shalay dadkan laayay ah waxaanu sheegaynaa qabiil ma noqon karaane iji intaasi la eg jab iji intaasi la eg oo naxariisa yaysan idinka gelin gabdhihii bay rabaan haddana laamiga afaridoodka in lagu kufsado 13 jirada sidii salbalaar ay samaysay wiilashii bay rabaan 77 in loo toogto oo ma arkayse waxay doonayaan dadka iyagoo nool in bakaaraha lagu gubo mudulada lagu gubo sidaasay doonayaan ilmahoodu meelaha ma joogaan ilmahoodu meelo kale ay geysteen guryahooda meelo kale ay ka gateen kan ugu dhow naag kuwa hadda la keenay ah ayay naagi ka qabaan ilmahoodu ma joogaan berri bay kaa dhex baxayaan war qabiilow kuma matalaan maad kuma matalo lafta gareen kuma matalo waa qaa'iniin qabiilka ay ka dhasheen ma wada matalaan waxaanu leenahay eelay ma matalaan ugaas xasan qabiilkiisu ma matalo nimayo ummaddan waa hal qabiil ummad yahay isku duubnima muujinaysaan oo feeraha ma uga dhaxaysaan tuugada meesha la keenay ma uga dhaxaysaan waad isaga filantihiin war bakool xaggee joogtaa bakoolow aaway bakool aaway shabeellow aaway wallaweyn aaway afgooye aaway marka aaway baraawe aaway toorotorow aaway buurakaba aaway daynuunay aaway ufurow qasax dheere diisoor waajid war maxaa haray walaalayaal waxaa idinku soo maqan oo aan idin shidi doonnaa haddana codka ciidamada markay yimaadeen xasan xuseen eelay uu ku hadlay baan idin shidi doonnaa bal dhegaysta ninkaasi wuxuu ku hadlayo arrintu inay qabiil ka guda weyn tahay tuuga isbahaysatay ummaddan inay gumaadaan ay u gumeeyaan ay u loogaan macnihii cadowgooda oo 4 sano hadda ka hor ay la dirirayeen in ay haddana dib u geliyaan inay rabaan xasan sida codkaasi soo dhaweey sida wanaagsan oo aad ugu shaqaysaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan su'aasha aad weydiisay oo in ciidan saaka la keenay magaalada Baydhabo sax way jirtaa ciidamada booliis codka go'ay xasan oo mar kale iigu celi meeshaas iyada codka uu idinku soo maqaya حسن أو إيدار عدك حسن حسين إيلاي وكوهر لإيدار بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمها سنتين أستاذي مقدشو سيدة ونأسنا أدوغ الشغيسان ومدى الصوماليات قارهان سؤال شعبي ويديسي أو إن عيدا ساكا لكيني مقالة بيدو صح واي جرتا عيدا بوليسة هير فدرالا أي كيني مقالة بيدو هذا عيدا بوليسة فدرالا بيدو ساكو ومهرين هرين وأجوغين إن شاء الله تعالى كوكا وبدن وحن رجينا إن لكينو وقال لصعطا وحا كجر ودن دورشا كجرتو waxaa la rabaa doorashadaas inay ku dhacdo si nabad ah cadowga al-shabaab ummadan Soomaaliyeed dhibaatooyin waa la socotaan wuxuu inta badan isku dayayaa inuu qalqal geliyo nabadgelyada deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada caasimadda hadda doorashada inay ka dhacdo la rabo maalmihii la soo dhaafay sida aad la socotid meelaha qaar ayay nimanka cadowga isku dayeen inay talabin qaadaan ciidanka la keenayna waxay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo nabadgelyada ay ka shaqeyn doonaan insha Allah ta'ala argagixisada iyo cadowga al-shabaabna waa la diriri doonaan ilaahay idinkii meel walba ay joogaan waa kula diriri doonaan dalkana hadee dal Soomaaliyeed waaye ma ahan dal kale ciidan Soomaaliyeed hadii la keenayna
wax problem oo aan ku qabnaa ma jirto insha Allah waana soo dhaweynaa ilaahay idinkiisa waa la socotaa koonfur galbeed waxay ka mid tahay deegaanada hoos yimaada ama meelaha maamulada hoos yimaada dawladda federaalka horeyba waxa u joogay ciidamada xoogga dalka joogay ciidamo booliis oo federaal joogay saraakiisha ciidanka xukuumadda sida la socotaan dawladda federaalka ayaa lahayd kuwana waxay ka mid yihiin ciidamadiyo wax problem oo hadda aan ku qabnana ma jirto biidnillahi karim waxaan rajaynaynaa meelaha cadowga uu soo ataagayna inay cadowga la diriri doonaan nabadgelyadana ay ka qayb qaadan doonaan ilaahay idinkiisa dadka Soomaaliyeed dhamaantood ama koonfur galbeed ciidanka amaanka dhamaantiis waxaa xil ka saaran yahay badbaadada ummadan iyo shacabka in la difaaco ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa shacabka cadowga in laga difaaco meel walba ay joogaan dawladda federaalkana waxaan rajaynaynaa inay shaqooyinka ay sii laba laabto oo ay ka shaqeyso dhammaan meelaha cadowga uu ku sugan yahay sidii ciidamo loogu diri lahaa meelaha ay wax ka dhaceen si degdeg ah gurmadin loo gaarsiin lahaa saanad fiican loo keeni lahaa insha Allah cadowga lagu diri idinkiisa ugaas xasan oo wasiirka warfaafinta ku magacaaban farsamo yaqaan oo iishid isagana wuxuu ku hadlay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا دي مقالة بيضاء سيدا لوجي هايبا معلومات صوت صعودة وحنا نقول فود لدور الشدي دور الدولات كوفر بالبيت الصومالي اللي دور لها مدحونا حقا معلومات صوت صعودة لدور لها ودهان بهيلها أمان كوفر بالبيت الصومالي يكون قرن كيكون عامل صوبينتو وحي معلومات بكون مشغول كرايا سيدي أي أمنية مقالة نواحي جدا الله سوق لها يعني dhibaato oga soo gaarin guud ahaanba doorashada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ku soonahay in nimanka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee cadowga ahaa ay danaynayaan in dawladnimada Soomaaliya ay xuriyaan doorashadana ay khalkhal badan geliyaan marka waxaan dareemayaa marka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda amniga iyo hay'adaheeda kala duwan iyagoo iskaashanaya iyo federaalkuba waxay wada hadallo dheer kadib isla go'aamiyeen in ciidamo booliisa oo dhinaca farsamada ka caawin doona ciidanka koonfur galbeed Soomaaliya amniga sugaayo in magaalada Baydhabo la keeno iyadoo qaybtii ugu horeysana ay saaka soo gaartay waxayna kala shaqeyn doonaan ciidamadii hore ugu sugnaa deegaankan kuwa qaranka iyo booliiska in ay gacan weyn ka siiyaan sidii amniga doorashada iyo goobaha la sugnaa dabcan ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed oo inta jooga intuba waa kuwa hore u wada shaqeynayay marka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyada dalbatay in ciidamo dabcan dhinaca farsamada iyo dhinaca qalabka ka saaciidi karo bariiska koonfur galbeed Soomaaliya dhinaca farsamada in loo soo diro dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay ka duuleystaan dareemaya inay soo dirto ciidamo tiro kooban oo kala shaqeyn doona dhinaca amniga magaalada Baydhabo waa ay degan tahay wax dhibaato ah kama jiraan waxaa meel wanaagsan marayo guddiga doorashada qabanqaabada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo iyana meel wanaagsan wax marinayo nagoo rajeynayna maalmaha inuu soo aadan inay doorasho ka dhici doonto magaalada Baydhabo joogu waa degan yahay dhibaato ama laha shacabkuna nabadooda ay qabaan hay'adaha kala duwan ee amniguna waxay aad isugu mashquulinayeen sidii ay doorashadana si wanaagsan ugu dhici lahayd iyagoo si dhow u wada shaqeynayo ciidamada AMISOM qaybtooda halkan joogto iyo anoo hadda inaan tiradaas aan idhaahdo waa la igana yara fiican yahay hay'adaha ammaanka tiradooda idin xaqiijinayo laakiin ciidamada anaa xaqiijinay 100 askari waa amniga kala shaqeyn doono ciidamada halkan joogay booliiska koonfur galbeed iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed kala shaqeyn doona inay Baydhabo yimaadeen talabka ay ku yimaadeenna ay lahayd hay'adda amniga koonfur galbeed Soomaaliya ay waxaan sheegaynaa reer koonfur galbeed Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ugaaska caday laki ugu xumaawa qabanqaabada wallahi billahi oo tallahi madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya la in qofku uu yahay loo sheegay shanta bisha December hadii alla idmo shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya iyo dawladooduba waxay sugayaan in isbeddelka koonfur galbeed Soomaaliya ay noqdo Xasan damin yow sidoo kalena reer wuxuushtaasi ma dhageysan karayna anaga damiirteena ma ogolade war sharaf iyo ciz iyo karaamo inaan adduunyada sharaf iyo ciz iyo karaamo adduunkan inaan kaga hooyanaa inoo dhaanta waxyaabahan oo kale inaan dhageysano waxna nasab annaga naas sheeganaya habar naaslayaal oo annaga nasab sheeganaya oo koonfur Soomaaliyeed u dhashay leh qarnigan la joogo ummadan oo xoroobaysa inuu yiraahdo amniga waxa noo sugaya ma arkayse reer galguduud wax la dhageysan kara maahan garbahaaraya noo sugaysa inuu yiraahdo wax la dhageysan kara maahan nimayow taariikhda wax ku qaadataan wax ma barataan xageed u socotaan nimayow nimankaasi meesha lagu soo dajiyay mahad cabdikariin waa cadowga koobaad ee ummadan ma arkayse kala gaabinaya
isaga waxaa ka muhiimsan 15 milyan ay yihiin isaga ay hoos imaadaan baa la yidhi niman yow mahad cabdikariin waa laga badan yahay niman yow mahad cabdikariin gacan bir ah isaga qabta ummadda koonfureeday ninka ay wax ka socan la ay yihiin oo ummaddan macnihii kala dhilaya oo wax walba dusha ka saaraya oo balaan kasta oo ummadda lagu khalkhal gelinaya soo dejinaya mahad cabdikariin weeye meeshaan wax qabiil la yidhaahdana ma jiro qabiilka uu ka dhashay lafta gareen looma saarin karo arrintan 95% way ka soo horjeedaan I am sure as my death sidaasi daraaddeed waxaanu leenahay gumayn dadkaasu ma oggolaanayaan shaati guduud baa ka dhashay oo ummaddan soo hogaaminayay maantana ma arkayse isla tabtii bay taagan yihiin nimayow family available ma doonayno waxaanu leenahay mahad cabdikariin mahad cabdiraxmaan ummadda ha laga qabto diyaaraddan jabuuti ka soo kacday saadaq john oo cabdiqaydid musqusha ugu galay xaaskiisii rabay inuu soo toogto cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur dhaawacay oo cadaada ka soo jeeda taliya looga soo dhigay hal askari oo maay kuma jiro kii daraad markaan fashilinay jabuuti ciidamadii joogay oo shabaabkana la shaqaynayay qaraxyada fulinayay oo ceelabuur iyo caabuduwaaq iyo cadaado iyo ma arkaysa garbaharay laga soo qaaday weeye dhammaantooda tuutiina waa loo geliyey isagaana farta laga saaray waxaana la rabaa in derbi lagaaga dhigo oo lagu yidhaahdo qabiil deegaanka u dhashay baa ma arkaysa dadkan ay ka qoran yihiin sidaasi daraaddeed dhagartii ugu darnayd weeye asaxaan ha u samaynina mahad asaxaanna idinma samaynayo waayo taariikhdiisuu cunay xaarkiisuu cunay dhul uu soo halgamay uu dagaalamay ninkii shalay macnihii baydhabo ku soo duulay adeerkiisu way ninkan shabeel ninkii maanyafuulka lagu dilay weeye baa adeer u ah saadaq john ayaa la yidhaahdaa waa wiil dhuuban hadda ka hor ayaa waxa aan goobjoog u ahaa wuu calool weynaa mid caydiid la shaqaynaya oo ma arkaysa kuwii caydiid baydhabo markuu joogay la joogay ah af maxaagana si fiican aan u aqoon baa masaajid la isugu yimaaday weysadii ilaan goobta lagu weysaysto waxay leedahay macnihii shamiintada way daxalaysataa simbirixay noqotaa weysadana soomaaliya masaajidda safaa loo galaa saa ogtihiin markaasaa marka nin weysaysanaya ayuu ku dulkufay intuu soo simbirixday markaasaa waxaa lagu yidhi war maxaad noogu dhacday markaasaa wuxuu yidhi anigaba waa soo taytayooday waa soo tariinbaday ilaahayaa ii taalay moogiye waa tariiq mi lahaa ee maag iyo kas baan kuugu korkufayuu yidhi sidaasi daraaddeed maag iyo kas macnihii annagu uma sheegayno warka kan waa war xaqiiqo ah nimankan dhammaantoodu waa sidaas macnihii waa soo taytayooday waa tariinbaday anba ilaahayaa ii taalay bay macnihii xaalkoodu yahay waan tariiq mi lahaaye wax ay ku fadhiyaan ma leh wax ay yihiin ma leh waa canaasiir walaahow iyo waxaan waxba ku fadhin bay meel la fadhiyaan waa cadowga kuwa kore kuwaana ka xun waxaanu leenahay bur iyo biyaha loo kala baxo haddii ay isku dayaan in ay difaacaanna war nimankaasi dhulka ay ku jiraan ha badbaddo ruush xarbi galay waxaa la yidhi adduunye ma xamanayso mahmaadaasi ummadda koonfureed waxaa la doonayaa inaad adinku mahmaadaasi aad la soo wareegtaan oo aad tidhaahdaan reer koonfur oo xarbi galay adduunye ma xamanayso ruushka oo ilmihiisii la afduubtay tiyaatar lagu afduubtay oo kale sidii south abkhaziya iyo ingoseshiya uu u galay oo kale waa inaad u gashaan ugu daadataan waa in ay badbaddaa idaa zulzilat alardu zilzaalaha dhulka qiyaamaha saasuu u badbada meeshaasi waa inay badbaddaa waa in baydhaba hal guri aan lagu arkin intii kuwaasi ay joogi lahaayeen haddaad yeeshaan maalin aynan noolayn ama maalin aan noolnahay oo hadda kadib ayaannu iswaraysan doonnaa wixii lagu kala dambeeyaba haddaba waxaanu leenahay meeshaasi ha badbaddo hadday isku dayaan u fiirsada qoladii isku dayda in tuugadaasi ay difaacdana walaalayaal waxaanu leenahay waad ka badan tihiin jiritaankiinni iyo qadiyaddiinni qadiyad iyo waxaa loo qaybsamay qadiyadda lacagta macnihii qadiyadda qarashka iyo qadiyadda dhabtaa loo qaybsamay waxaanu leenahay 90% baa tihiin inta qadiyadda dhabta ee ku taagane tuugadan ilmahoodu macnihii dibadaha geystay oo aan shaqada kugu lahayn hadday isku dayaan inay cajalad qabiil aydin geliyaanna
qabiilkii isku daya nafsadiisi isugu taga waad ka adagtiin baydhaba soofiso inay gubato waa loogu talagalay har noo gubato laakiin hadday gubanayso sidii arare ay guusha uga keentay oo loogu feesteeyey abwaan tarash abwe abgaalow nuurta arlaadi cali bugay ma arkayse jaakoole muxsin muxiidiin ay ugu heeseen hoteeladii horyaal iyo hoteeladii gobonnimada oo ma arkayse xurnimada kooxdii buurakaba sidii ay sameeyeen daashaya saas ha noo noqoto laakiin xornimaha ku joogto hadday isku dayaan all of you dhinac umara macnihii si walaaltinimo leh u dila si cadowtinimo maan si walaaltinimo leh u dila cudur bay soo wadaan shalay aydiid kuwii keenay meeqa sana ayaa dhibaato la mutaystay ma ku fiirsanaysaan iskama qabanaysaan miya war xaajadan way xumaatay macnihii wax la sugaaya ma jiro waxaanu leenahay inta aysan idinku soo badan tijaabo weeye haddii aad quusisaan hadda meeshaba ay badbaddo CNN-ka iyo aljasiira iyo meel kasta laga sheego maalin dambe kuma soo hawaysan doonaan laakiin haddii aysan guban nimankaasi oo aysan guban waxaa weeye habeen kasta ciidamaha la idinku soo daabulaya arrinkiinana wuxuu ku dhammaanayaa faarfaare walaahow iyo waxaan waxba ku fadhin baana ku soo dhammaan doontaan marka qofka ugu horreeyaan soo qaban doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo waa ku dheeraaday raalli ahaada doodda waxaan soo qabanayaa qofka ugu horreeya falaxad caddeeye falaxad igu soo darsan maya kamaradda ha ii daarnaatee ii kaade maya xasanos waxaan soo qabanayaa ninka la yidhaahdo farfartuun cabdicasiis aan soo qabanaya insha allah dadka macnihii aan soo qabtay moobeelada damiya dib u soo daarta soo gala insha allahu tacaala xuseen qaasinaan soo qaban doonaa kuma soo qaban karo I'm sorry maxay tahay dadkoo dhan waa soo qaban lahay okay hadda wiil baan soo qabanaya wiilka ugu horreeya ayaan soo qaban doonaa qofka ugu horreeya uu kaamirada qabo dagaalku waa uu dheer yahay ninka ay u saaran tahay sunnada geesiga difaaca dalka soo dhowow salaamu ullaahi calaykum codkaaga kor u qaad insha allahu tacaala ma arkayse aragtidaada maxay tahay ciidamadii ma arkayse saadiq john u hogaaminayay in baydhabo la geeyo aad baan kula socdaa fikraddaada soo koob okay walaalkaa isaga waa uu ka go'ay waxaan soo qaban doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo wariye sare afyaraan soo qaban doonaa afyare kaamirada qabo dagaalku waa uu sal dheeraaday dalbashay dalbadeen maalmo in lagu daro wixii oo dhan macnihii waxa loo dalbanayay ma arkayse waxay ahayd arrinkaasay ahayd laakiin hadda macnihii duur cad baa la isweeraraya afyare mar kalaan kugu soo celiyey kaamirada qabo mister afyare qofkii inta soo wici dhankaasaan uga dhiibayna insha allah afyare waa ku soo qabtay kaamirada qabo salaamu ullaahi calaykum afyare buuq yaraad ku dhex jirtaa laakiin afyare ma arkayse qof walba wakti kooban uu leeyahay ciidamadii jabuuti laga soo qaaday oo aan sheegay oo saadiq john uu hogaaminayo baydhabo inay ku sugnaadaan maanta maxaa jawaabo macnihi maxaa ka leeda nimankaasay jawaab fayleen haay aadan nimankaasay niman haduuliyo nimankaasay niman farmaajo iyo lafta gareen wadadano haka duulen marki siyaasadda sidii oo fadaayan haka duulen macnihi walka waayan wali haka duulena mayla raay ini wal hindidan aan duulen ini walna qashqash yarano mayla raay wal awood kama qoonisadan aan duulen ini mayla raay dadka raxaween guud ahaan mayla raay farmaajin ogoonsanayna kiin sheegaana macnaheed dad ahaanba manin ogoonsan maadaama uusan ogoonsanayna wali in baahan yalan oo us abtan ay inti meelisheendada hoobus sheendado ayona raxaween imaa la dhamaay imaa macnaheed wala usfado adbala yaa rafjay taasoyna aan wari eed mayla raay aan buraarujiyey hoobay noo gabarhankeerna ini dameero waasayl isku difaacaya mayla raay hajeediye hoob la waayona mayla raay insha allah gumeysi oo mayla raay isin martanba dareemo doontan as macnaheed aaga doontan insha allah
هو لكن ما يدراي سيرقنا ما لهم كجواب ما يدراي قلنتين شومياسا مركان dadka guud ahaan dhalinyarada wala in sheegay meel macnaa dadka inay dhulsho difaacaan lambaahanyi odayaalka ma ee gabro ma laakiin wali lambaahanyi dhalinyarada oo magalka inay dhulsho difaaciyo lambaahanyi kasteen aad iyo aad okay nimanka hadafkiyo leen wali waxa macnaa meel ciidan makiyar lan ciidan ka bootay koran male laakiin wali falaayeen ciidamada iyo hooga kasheeno aan in la qashqasho meel ma ilaahay foodaas ku faa'iideysan falaayeen okay nimanka soo right now macnaa information kan ku helay in lafta gareen macnaa meel u deganay degano ani waardiyan area aragay hadayna live u soo ka jaro aragay oo nimankaas in doodaw ciidamadan security ahaan leenshaan meel kale meel security maranka baahan macnaa laakiin ciidanka oo asan eelay wali jeebaas ka sawir jaray macnaa 700 oo ana tababaran yiri nag meel kale ay aaw 800 dameerka sheen markuus hamar maalin walba ciidamo ku sheenoy ciidamadu tababarkan yiri jaray waan ciidamadu tababarkan yiri jaray dabadiisa qoryaanka ku wardeeyana macne dabadiisa ka jarana ka aruurina oo qoryaanka meel ku wardeeyana oo leys maya waa sheeko duulan mana qaadado doona wana wali nasiyaal insha Allah waa jidkun oo meel raay bay dhow iyo xudur iyo weejidan dhahayo in la furlo diidini antum rafaadena saasada lang mariyo hay dawladana macnaa geeka lagu bilaawal nabadiid in nag ma baneen sheena kortiyo nabadiid iyo zaalimiin iyo meel raay iyo madaxtooyada bas leeyo kuma luuq wal boo Soomaali kumida in ka duulana meel raay xoog iyo farlaab ku kuma fadaan taasna siyaad bari wadanka qubay soo meel raay Ethiopia quwata African Queen meel raay burburiyaaya wadanka qubay soo meel raay duleysni ku lugay meel okay markan wali sheegane farmaajo ciidamadu subay dhowsheen inuu si degdeg kanaga oo isku naga waayaan wal alla wali aqabad nimankaas ay meel ku kulmaan ay shacabka oo iska baaba isu mas'uul ku mas'uuliyadna ma qaado karo lan oo khayr darno meel raay qabiyaalista oo macnaa madaxweynena ma nagada karo waa umtilaahi khiyaaneen dabi wali waxa meel raay lan oo khiyaana cad an dabiyo qabiyaalistinaga qabiyalistinimadiisna insha Allah jawaabtay uu siyaan geeka 91 kana 93 kana 2018 tuugnimana ma shaqeeyas khiyaanana ma shaqeeyas hoogna ma shaqeeyo markan hoob rahweeni atamaanay dad oo maalan wal meel ka arag leeyma la fadhiisay ama jolan kiiro hoobeen wala saaraga doona tiitiya kala lafta gareen wala sheegay reer abtiil aan shaqeeyo hayt rahween mas'uuliyadda maqaalo korta lan howliyata naas ee hol keedeeyada هو بعد هاي هلكمي برك معني شاكل هو ضعيفنمada qaadaas ma qaadaas أول بما إلى هاي ولو سعر كذا جري reer abtiis lay basaasan hay taasana tusaas geekana roog maane wariya MTech ma ila raay dawlad inta ma ka hayta adina darafta tabadil faat tuuga la ku siiyay maane markan walayn sheegane guud ahaan bulshada rahween dhamaantiyo anti aayasho iyo leen suruman anti ma ila raay dadnimada difaacan anti ma ila raay lankeedeegana shakhsiyaal la keedeegay ligof anti ma ila raay 7 milyan iyo 4 milyan iyo 5 milyan oo nan ninkubna barkaneen la galana hal isku difaacay xilbaan ko meel ku qeyb galay ma ila raay ka hadalay markaasay fikirjay ka jeedisay masadanooji ku hadalay ay ku dabagalnay xilbaanada sidooba maalintii kursiga la fadhiisiyo ma ila raay sanduuq meel la dhiko meeneen balan una xilbaanada hoobiyo haliyeen iyo nay hoobiyo lafta gareentu inkee u sugays argaan insha Allah sheekadana ka dheeradi eedyada kiin salaame war gobanimo ka noolanen mise ku guurnan dhulka rahween la too dham afyaraw laakiin macni hadal kaliya wax ma taraayo ciidamadii hadda magaalada Baydhabo ay joogan ma arkayse jawaab degdega oo 24 hours loo baahan yahay maxaad leedahay macni hal iska aamusa ma leedahay naga baxa kaliya la yiraahdo mise nimankaas weerar lagu camiyo leedahay أنا nimankaas waxaan soo jeedin lahaa koow bari waaga markuu ilaahay dadka aanay soo mariyo waa koo horta in mudaaraad loo kala arin iskuulada la xiro nimankaas lagu mudaaraado koow
talada labaad aan soo jeedinayo dawladda haddii beri iyo beri dambe jawaab ay ka soo bixin wayso ciidamadaas meesha ay ka celin wayso ha lagu liso niyow dameer dhalay waay ha lagu liso macnahe shalay markii mayla raay adaada problemka teeganayo lan raaweenga malan dirna sababta lan habarkeedana shalay meelini dhamaay jar dhamaayay anti garaada lan yiri tug dhaliya sanaaninka dirawna maane isla ayfsado aawa ciidamadii weli jameel ka tababaraayo 4,000 dhowrka 10,000 waayaan oo shariifka mayla raay oo kasyoonka qaada jari waan hasan eeray ciidamada tababaray sababta macnaheedu hamar ciidamo kale ku sheegay dadka nin sheeg hore war hasan eeray kiyoona ciidamada hal israasiyeeno magaalada halku biyo dameer dhaliya maane aad iyo aad baad u mahadsan tahay fikradaada nadiifka ah si kale male xal kale male in ma arkaysa la israaciyo maahane okay waxaan soo qaban doonaa fartuun cabdicasiis aan rabaa inaan soo qabto haddii aan soo qaban karo hadda mar kale fartuun teleefonka demi dib u soo daar waayo waa ku soo qaban lahay weli waxaan soo qaban doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo dad baa maanta fartuun mar kale teleefonka demi dib u soo daar waxaan soo qaban doonaa baarliin ayaan soo qabanaya baarliin haddii aad ila joogtid kamarada soo qabso insha allah أنا معي إنك تلاقي النوان هيك وبتي ما هتصنطر. وأكو سو تلاقي وأكو أكيد وأكو. هو إنك تلاقي اللي إيه ما هتصنطر دوغ فيلي لانكو أوتروري لروري الوجه ده ولي أريتني إداتي أنتينا هني دولة ونهردان بس وغاني والحتى لا ميل أراي ونيوكس وغاني ما هردان بوراني إنك دولة جرينا حتى لا ميل أراي جدكي ليك كوين فيدون أصحام إن حريص مكسوعين يقول ولي أقعد أنا أنتي حبر قلقة دبدية فيدنا يتيك دلاسي حبر ريون عندي دبدية فيدنا يتيك دلاسي أقعدين ولي بعيد هاي فرنتك جاري أنتي بيدو سانك وريك سنين أقعدين تبعتري أو ميل إرايس بيدو كدير شعبك مدحوينين ها أنتي لا إرا أو ميل إراي قرمز مدوي بيدو روكت أدوك نقول كفير صدقاي لكن دلك كيك كنا ودبعتهم كجرة ونهني دولي عيدن هني وددي عيدن كي هذا فرماكين كجرين بيدوي كوريك سنين شفت هذا مدحوينين ما هو دادين بارلين أي موعد لهذا هذا دارادن سماكس نمكاس يجا ماشي كجران هالجوجو وحي دعي هدعو دبك الستارة أصحابنا نسوب لو دبك الستارة طف بيلاري طف بوك مكان أي ماس طف باي مكان أي ماس رحوين يجي جورا وهو بيدوري كعالسة حتى بعد اللي رحوينه باور أنت لك دوا يرميت شيء أفريجات كي بينهم مالك تجيدو ما دون مريهم من إنكويا ما دون هبرجدر من إنكويا سون أنت نفسني جات هلا بانا ولا الشيء أوجيك دتكلم متلاين أو دولة دحك جران دتكلم متلاين ولا الشيء سريسين عندسن هوتيل سين عندسن باورنا رجال منارك عسكري نار إنجاز يسين كي إيراليات يسين بلدك اللي هو بريغسم هو بدلكين دتكين يسين كدار تك دتكين دالكين أولاً يتين دالكين دتكين أنتي لبابيو حرمان هلا تغير جاي كبير جاي لقميسد يلا كتلا قالي تاسنا ديار مني هني مقلي بلعنا حكيجنا ما نكو سوغا هين راحة هو ما إلى رئيس سومالي كونفرنس لقميسد قالك حسبرتي تغيره لانك هندي لو ملا تقبع دوغادين حسن إيلا إيو أوغاس إيو ماركيس أوغاس حسن إيو كوي شريف حسن وكتغي إيو مهد عبد الرحمن إيو رقاسي معني خبيل من بتلي كران معاد ليرا إيو كوان إيدا كسول لويا نسكو برما ليرا مسألة كالغاب خبيل من متل كوران حسن إيلا يوريكو دالذي دادكي ميلا إراي كاريا نسلكاين oo meel eray usu misgeeda noon unigamna xoolaha unigamna dawlad walba ku baahanayni dalkaan uni difaacadaan halsana meel eray bay dhawo aan fadhi meel eray aan fadhi shir aan fadhi hungurjo iyo dhiibaday meel eray xoolaha iyo gooristaday yaku dhaladay hoobu sadayus nagadi halkan walko qaaday uu sileey dalkan ay dadkan walka eeta lan hada kooy bariyay wal mangiidi ugaas adina bariyay mado مدونة قال هم إني دوادوي مدونة دمير هم إني ويرتوي دايوس نمي عارجة تانية لما نمتى لكورون هتقو بعد هلندي بس دومنون منا قصد دونتان هو بيسن دالكن سكفير دان قبل لما متى لاسن
onuuna mana matalaasan ee dhaliyeetin ilankii singwadadiya wadatan ya mayleeray madaxweynena hata ku bacda gumaad ma ogolaadas maalmayna gumaado doono hoobu federalisnimada federaalka adduunku runku eye na arigahayan qaramada midooba intuu 24 saac Facebook u qayliyahayna antii maatidaana dhahan duuli dhulkaana nabadyaala dalka geeka labada ku jarta dalka geeka dalka mayleeray dadka intii la deganyiig la nooladan dadka geeka raalo ku oo nabada fadaaya oo masaakiinta oo maatada markasta la gumaado naarigahayan iyo masuulku dadka geeka mad qaramada midooba matalahayan oo mayleeray isbay dhowr rooga masuulku lan qaramada midooba kumad bay dhowr ka dilay lan masuul sheegada bay dhowr ka dilay dalkaan wari ku dhibaatay hal qof maatay hadii oo dhamato masuulku aad baad u mahadsantahay baarliin ma arkaysa fikirkaaga nadiifka ah waxaan soo qaban doonaa xidigta Cabdicasiis ruun ayaan arkaya ruun waxaan rabaadna inaa iisii joogtid fartuun adigana soo qabso ruun waxaan kaa doonayaa inaad ma arkaysa aad live-kan aad ka soo qayb qaadatid caawa haddii ilaahay uu ka raali noqdo xaaladda meel kulul bay maraysaa runtii macnihii qof reer koonfura maanta meel uu jiifto ma joogo salaamu ullaahi calaykum fartuun وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا وان إذن سلامي أديو إنتنا داوانا يسدمان فينا هورتا أرنتان سهلا معهن وأرنتان لهين محايا هذا نمان أو نساء صوص عدنا منكي أورتا دارك اللوسو بدلي وان أرقنا ولجيت كي أسعدان وان وذا أغنى هاي معهن نبات سوغيت معهن وناكالي معهن شرف كالي أسعدان وان وذا أغنى هاي laakiinse waxay ogaan doonaan horta dadka jooga baydhaba mise koonfur galbeed guud ahaanteeda maahan waxay haystaan iyagana qori ma haystaan kuwana qori ay haystaan kuwana qori ay haystaan cid ka adkaanaysa ma lahan cid ka cabsanaysana ma lahan waxaan ku leeyahay hadday sameeyaan dhaqdhaqaaq yar qofal meesha lagu toogana maahan ileen meeshan waxay ahayd meel maamul ka dhisan ase hadday inkastoo la leeyahay ciidana lagu soo kordhina ninkan la leeyahay wasiirku isku sheegayo calooshiis u shaqeystaa uu leeyahay waliba ciidan kala lagu soo kordhina uu leeyahay wuxuu ogaan doonaa asaga iyo inta joogtaba nimanka meesha joogo soo halgamiyaasha ahaayo aaraaray u soo halgamay inay meesha joogaan aysan dhimayn oo waliba noloshooda ay xaadir tahay oo cid ka cabsanaysana aysan jirin taa iyada meesha nooga dhacay maxay ahaday waxaa jira xildhibaanadan maxay ahaday koonfur galbeed oo ka mid yahay maxay ahaday baraag cibaado ugaas xasan ay dhaxeen maanta loogu sameeyay qada sharaf meeshan oo maxay ahaday loogu sameeyay lafta gareen ay waliba ugu baaqeen xildhibaanadii federaalka ahaa oo u soo halgamay koonfur galbeed oo joogay oo deegaan doorashadoodii meesha ahayd oo u soo halgamay oo la rabay inay ogaadaan deegaan doorashadooda wax ka dhacaya ay ugu baaqayaan dawlad isku sheegta oo nabar iyo naxdin ay leeyihiin nimankan hana laga qabto aniga waxaan la yaabanahay taa iyada ma nimankiyaa shisheeyaa meesha jooga ma maxay ahayd dadka meesha joogaan dadka ahayn ma keliya waxaa ma keliya maxay ahayd reer koonfur galbeed oo xildhibaano isku sheegayaasha oo meesha jooga kulligood wada calooshad u shaqaystayaasha ma mas-uulka koonfur galbeed ma saasay isku maleeyaan aniga ma aqaano waxaan leeyahay inta calooshad u shaqaystayaasha sheekadooda way ka dhacday meeshaasna waxaa soconaya mar walba oo socdana rabitaanka shacabka cid ka cabsanaysa male cid hor istaagaysana ma lahan waxaan leeyahay hadduu qof ay keeneen ciddaas oo tallaabo qaado mise wax sameeyo qof ka cabsanaya ma lahan meeshana wax joogo waa la ogyahay ciidana joogo qofna laga cabsan maayo laakiin waxaa leeyahay ninka wasiir isku sheego meesha joogo oo ciidamada isaga soo hogaaminayo waliba taagana ciidan kale lagu soo kordhinayo loo ku dhiiranayo isaga iyo ciidankaas inaga hal meel ay noo joogaan mana laga cabsanayo lagamana cabsan maayo waxaan leeyahay reer koonfur galbeed dhammaantood isku duubnaada adduunya isku duubniya wax lagu gaara rabitaankeena hadda uu rumoowa cidkood istaagaysana male waxaa nahay dad midnimadood u istaagay laakiin si hadday noqoto waa lisbaroobaynaya baroobadan tan iyada hadday kugu tagto way tagtay lafta garan hadduu yahay qof muwaadina mise qof ku soo halgamay koonfur galbeed oo laleeyahay aar uu soo ahaan jiray hadduu yahay qof wanaaga ka shaqaynaya reer koonfur galbeed mise dadkan hadda loo maleegayo musiibada iyo rafaadkii silac haddii ku jirto dhiig islaamnimo mise dhiig reer koonfur galbeed
ma istaagi lahayn oo meesha ma isku sii dhajin lahayn wuu kici lahaay wuxuu dhihi lahaa farmaajo khayr ani ma habaabinaysaan reerkayga ama cidda aan kasoo jeeda lama habaabinayn laakiin waxaa noo caddaatay meesha ka aragnaa inuusan ahayn raxweynta la sheegaayo mana ahan lugna kuma lahan waana sheegad waana shaydaan wuxuu rabaa reer koonfur galbeed suu ku baabiin lahaa annaga waxba ma qarinayno waxna ma qarinayni wixii ilaahay garadsiiye waan sheega waxaan leeyahay ma rabo lafta garan reer koonfur galbeed sharaftoodii wanaagooda midna hadduu yahay qof muwaadina muwaadinnimada korkiisa ay ku jirto dadkan masaakiinta oo isku meel u wada jeestay oo hadda wada saara ma ku talin lahayn mise dadka kula talinayo doonta halala gadiyo raali kama uusan ahaan lahayn aad iyo aad marka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay dhammaantiin isku duubnaada mudaaharaadna hala sameeyo oo cidna wax lagu yeelaynin aniga waxaan diidanaya laakiin fartuun maxaa mudaaharaad lagu gaaraa macnihii gurigaagii macnihii waaba lagu soo duulayba mudaaharaad maxay tahay war dadkaasi meesha in lagu basiyo soo maahan oo degdega weliba 24 hour 24 saac ay soo socota nimankaasi in meesha lagu basbeeliyo soo maahan oo eheladooda sawiradooda ay soo bandhigaan kaasaa iga maqnaa kaasoo ah ani ma ogeyn inay baroortaan soo maahan wixii waxaasi dhalay aadana waxay u imaadeen dikri salaan maahan iyo abaay meeshu ma imaanin inay wax khalayaanay u yimaadeen iyaga waxay u yimaadeen waa kuwii weliba kasoo fakaday kasoo baxay shabaab oo yaqaana sida miinooyinka iyo qaraxyada wax loo sameeyo waan ognahay waxay rabaan inayna sameeyaan annaga laakiin taayada waxay leedihiin marka waxay leedihiin hanoo joogaan ma arkayse meeshoodaan ku ilaalinaynaa ha ku soo quwaystaan ha ku cididaystaan markaasi kadibna ma arkayse hawshoodu ha fushadaan beledkaa qasaano macnihii sow maahan biyo still water randii biyo intaysan kusoo gaarin nimankan meeshooda macnihii tijaabo weeye haddii maanta aanan dambas laga dhigin meesha ay ku jiraan aan lagu ololinin macnihii sow kuwii kalena dhihi maayaan sheekada way soo haddii ciidama geeya laakiin haddii meeshooda dambas looga dhigo dabka la geliyo way ku quus qaadan doonaan ma arkayse wax dambe inay isku day inay soo diraan in soomaaliya lagaa bartaad u baahan tahay sidee lagaaga baranaya macnihii waa mudaaharaad waa ku siya ma ahayn shaati guduud siyaasaddii sidaasi shaati guduud siyaasaddiisu waxay ahayd dabka geli isagoo 2 askari wata isaaq dheere iyo mid kala wata ayuu macnihii land rover dagaal ku bilaabay 500 oo tignika oo caydiid naardiir uu wato maxay tahay maxaa la sugayaa masaakiinnimadan aa hadlaysaan what's that ulajeedka aniga imaadan fahmin waxaan ku idhi nimankan hadda iskama imaanin oo waxaa soo hogaamiyay wasiirka amniga oo wasiirka amniga wasiirka amniga yaa wasiir amni ah wasiir amni xasaanadda way ka dhacaysaa haddii khiyaanuuba sameeyey khiyaano qaran xasaanaddu sow ka dhici mayso qofka mas-uulka ah haddii ummadda uu macnihii qaranka uu khiyaano oo cadowga dalka uu soo hogaamiyo adduunyada jaajuusnimo hadduu qofka sameeyo waxaa weeye waa la dilaa waddamada qaarna macnihii life prison waay maxaa la sugayaa nimankan sow ma aha in dabka la geliyo hadda maxaa la sugayaa fikradda adiga aa leedahay aniga waan kula qabaa laakiinse waxaan maxaa la xeerinta aad sugaysid maxay tahay ma daabaa dhowran ma guri baa dhowran macnihii shalay waxaa la dhihi jiray annaga reer baydhabaan nahay koonfurta soomaaliyeed uma aaminsanayn dadku inay leeyihiin laakiin waxaa la yidhi ninkii aabbaha dhuus ka keenay adna xaaru kaa keenaya shabeellada afgooye markii isbaarada lasoo dhiganayay gabdhaha lasoo kufsanayay oo meel walba macnihii way fiirsanayeen laakiin baydhabo in la imaanaya ma ogeyn miya doqonadu hadda baydhabay taagan tahay ha la suga maa leedihiin maxaa la sugayaa maxaa dhowranaysaa sow baydhabo inay roganto soo kama fiicna sidaan baydhabo horta way rogmaysaa rogmasho kaloo hadda u dhiman ma jirto aadanow laakiin anigu waa fikradda aad qabto in hadda isla saacadda la joogo ani meesha lagu ololiyo aniga waan rabaa laakiin waxaa la yidhi waxaan fiir wax ka imaan doono qofka adiga mas-uulka isku sheegayo aaraamiga shaydaanka isagaa soo hogaamiyoo keenay laakiin innaga waxaan u fadhinaa inay ayaga wax bilaabaan ciidankii amni u imaaday waddankii joogay yaa wax lagu bilaabay maxaa bilaabid ah ciidanka hadda macnihii waa la keenay ciidanka waa la keenay saadaq joona hogaaminaya baydhabay ku sugan yihiin berri eelayna wuxuu hadda inta aan kaaga shiday inuu leeyahay in naloo soo kordhiyaan rajaynaynaa buu ku leeyahay naloo soo badiyo maxaa sugay marka waan ka daragsanahay keliya aniga waxaan rabaa inta lasoo badiyo maa la sugaa marka nimankaa yimaada iyaga inay qashqashaadi bilaabaan markaa cid ka qashqashaad iyagoo xamar joogay soo bilaabeen qashqashaad iyagoo xamar joogay soo bilaabeen hadda ma bilaabin they didn't start waxaasoo dhan waan la socnaa isku midaan ka nahay laakiinse waxaan ku leeyahay
nimankaa yimaado nabadda inay nabad sugayaan isku sheegay oo nimankii adiga ha xumaadaan ama war boqolkaasi qofood boqolkaasi qofood dadka koonfurta Soomaaliyeed degan 70 iyo dhowr qabiil waay 70 qabiil ee meeshaasi degan min macni 100 qof inta laga soo qaado la isku dhafo oo macni ay wada dilaan miyaa la kari waay si aan macni aan loo sheeganba qabiil gooniya weeraray macni 73 qabiila waxa laga soo qaadaya min 100 cunug dhalinyaro ah oo ma arkaysa beer adag oo macni dhamaantood wada wata jabsho iyo beeke am iyo bambooyinkooda way galayaan mana soo noqonayaan hadhowdina eedda reer koonfura isdifaacay wey ma la samayn kara miya way fiicneed in loo sameeyo way fiican tahay in loo sameeyo hadda waxna laga barto laakiin dadkii sameyn lahaa aaway qof walba dhegtu wax ka haya ishu wax ka fiirinaya qof walba wuxuu leeyahay maxaa la sameeyey dadkan hadda san annaga xog ogaal unahay xog ogaal maaha way jiifaan hadda wixii ka kordhaca ma oga iyaga xaaraanay ka tahay laakiin waxaa rabaa nimankii ogaan lahaa nimankoo maxay ahaday wada qoryaha haysto reer koonfur galbeed oo u dhashay koonfurta Soomaaliya oo qoryaha wada haysto oo Muqdisho joogo way awoodaan inay yimaadaan laakiin kama warhaayaan waxaa loo baahan in la ogaado ogaanshada iyada haddii la ogaado wax walba la samayn karaa laakiin aniga fikirkeyga waxaa waaye yani cid ka cabsanaysa male waan rabaa in isla haddadan lagu qaarijo meesha iyada aysan hal xaba ka boodin oo waxna laga fahmo na lagu waasaqaato waan rabaa laakiin wixii samayn lahaayaan lahay kii aniga ila dhashay oo xumaa oo magacayga sheeganaya yaa soo hogaaminaya oo ii keenaya war mar haddii lagu laynayo aydiid markii baydhabo uu ku soo duulay dad maymay ku hadlaaya aa u dagaalamaya shaati guduudna xabadda ugu horraysa uu ku ridana kuwa aydiidka hor wuxuu ku riday kuwa maygu ku riday bikaas iyagaa soo horreeya xabadda kow iyagu dilay markaas kadib kuwa kale u gudbay marka kuwan gabaadka laga soo dhigtay way ka darayiin kuwaasi macnihii hana la baabi'iyo waa iska sugaynaa miyaa maxaa la dhowranaya maxaa la sugaa baabi'in wax la dhahayo la dhowranaya ma jirto aadana waxaa ka tala faraha way ka baxday aniga waxaan dhihi lahaa reer koonfur galbeed ha la kaco nimankaa hal iska dhiciyo wax kaloo lahaayo male waxaana loogu talagalay taariikhdan 5 beri oo ka dhiman in meesha la geeyo oo hadhowdii Mukhtaar Robow lagu arqaladeeyo doorashadaas gembi lagu sameeyo ninkan ii qabo igu fariisidaa la keenaa la rabaa taa iyadana wax macquula ma ahan ummad dhan oo qoomiyad dhan oo nool rabitaankooda sidaa laguma burburin karo waxaa dhihi lahaa oo keliya aniga reer koonfur galbeed dhalinyarada yar iyo weyn haddaan nahay annaga dad karaamada sirta wanaagga horumarkeena aan rabno nimanka iyaga caawiyay meesha ku seexan aad baad u mahadsantahay okay waxaan soo qaban doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo qofka xigaan soo qaban doonaa dadkoo dhan gacanta u wada taagan hadaaye waxaan arkayay ma arkayse ruun ayaan arkayay oo isleh macnihii soo qaba xubbiyaan soo qabana xubbi cabdalla xubbi soo dhawow ma arkayse kamarada waa soo dalbatay annagana waa ku soo qabannay ma arkayse qabo xubbi salaamullaahi calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aadan oo ii waranseetahay aad baa loo ladan yahay soo dhawow walaashay barnaamijkan waxaan u malaynayaa waa la socotay haa waan la socday barnaamijka marka waxaan la yaabinin haddaay hadalkiisa aad noo shidaan maqlaayay oo lahaa ciidamada reer koonfur galbeed baa dalbaday soomaheen haa reer koonfur galbeed baa dalbaday ciidamana waa lagu soo darayaa waa maqlaayay waxaas oo dhan marka anna waxaan ogaa binta mashiga بن علي شريف ما يوالي بقي أضبيرك يا كتالي أنا بنت مشيغا دوغا بيلو شوكولاي بورد السرسري مالن بود ساريا برن رهاو ملي دوغا
biilushu kulay burud la sarsare maalin bood la saaraya berlan rahaw milee